السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السلامة يا دمانتين مرة بديك سوتين وواسك دبروها. وحن فيديو قاوس دوبي أو كجهد لايا لما ويلو الصومالية يا لو قبت قبل كأريزونا وحي وذي جاري تراجع كوش قيسنايين جاري وحلو قبتي دراجة سالو قبتي دراجو يا لو قبتي أديات daroogadaas oo qiyaastii lagu qiyaasay inay gaarayso lacag 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah Soomaalida boqolkiiba 80 Mareykanka joogto waxaan ku shaqeysanaa taraaga oo aan ka soo saaranaa qutulyoonkeena ka soo saarnaa wiilashan maanta la qabtay ama xalay tamiamsa adi weekend dhammaadkiisii la qabtay waxa weeye xaaladooda aad bay u cakaran tahay waxay la shaqeynayaan wuxuu ahaa broker buu ahaa tusaale hadda aniga gaarigan aan wado on ku shaqeynayo tareelaha aniga iska malihi company baa iska leh waa company weyn oo Mareykanka lagu yaqaano yaa iska leh sida Amazon iyo Walmart iyo Target yaa magaranaysaa dadka professionalka oo sidoo kale taa ay u jiidaan oo waxa weeye tareelahooda oo xiran seal baa ugu xiran gaarigooda waxay ku soo xirayaan seal bay ku soo xirayaan siilkaasi aniga ma goyn karo kuma xirin waxa ku xiray qof u shaqeeyo company-gan hadda aniga u shaqeynayo garaysa yaa ku soo xiray markaan company-gan xiradiisa markaan geeyo waxa weeye qofka aan u geenayo wuxuu iga fiirinayaa siilkaas markuu okay noqdo uu igala wareegaya tareelaha muhiimadda marka aan siilka inta waxa weeye gaarigan tareelaha wixii ku jiro oo ma garanaysaa hadda company-gan Target tareelaha u jiidaya sometimes Amazon company-ga la tareelaha u jiida gaarigan hadda tareelaha waxa ku jiro gudihiisa aniga war kama hayo mas'uuliyadeedan aniga ma qaadayo waxa mas'uuliyadeeda qaadayo company-gan yaa mas'uuliyadiisa qaadayo okay meeshan hadda aan joogo aan hadda ku suganahay waa xirada la isku baaro weey waa wait station weeye state marka ka baxdido state kale aad galaysid waxa weeye xiradana maraysa askara ku jirto ciidana ku jiro oo state-ka uu leeyahay gaarigaaga waxay marinayaan meeshaasay marinayaan waa la fiirinaa miisaankiisa la fiirinaa qaarkood hadda kan scanner male oo border ma aha waxa weeye kuwa sida hadda borderka meesha wiilasha lagu qabto kaleeto waxa weeye scanner la tareelaha dhan baa la scan gareynayaa oo la fiirinaya okay Soomaalida marka taraaga ku shaqeyso especially brokerka cararto waxa idinka waarinayaa oo aan ma garanaysaay aan idinka digayaa brokerada isma arkaysaan inta badan waad ogtiin qof broker ma arkaysan computerka ayaad ma garanaysaay loadka ka accept garanaysaa ka ogolaanaysaa telefoona kala hadlaysaa lacagta telefoona kugu soo diraya saasa ku kala bixaysan ninka brokerka waxa weeyaan on the ground lama socdo on the ground qofka taagan ee gaarigiisa intuu qaado tagaya company-ga adiga weey qofka ma garanaysaa mas'uuliyadda gaariga waxa saaran waa markaad broker ordayso ma hadda sidaan soo kalaba broker markaad ordayso mas'uuliyadda ada iskale boqolkiiba boqol ada qaaday hadalkayga u dhigayso okay tusaale haddii aad joogtaan dhinaca borderka Mexico iyo Mareykanka aad joogtaan soodka gobolada Arizona Texas New Mexico iyo ma garanaysaa California afartaas state haddaad joogtid oo broker ordaysid waa inaad mar walba taxaddar samaysaa way taxaddar foojignaan dheer ee waana samaysaa hadalkayga u dhigayso markaad ka soo qaadaysid goboladaas ee broker la dhiil gareynaysid ee loadka computerka ka fiirsanaysid haddaad aragtid laba load oo ka soo wada baxaya Laredo Texas ama San Diego ama ma garanaysaa meesha boorkeedana Arizona ku taal ma aqaan magaalada yareed aad arkaysid magaalooyinka ka baxaya laba load oo ka soo baxay oo labada loodna dhaqaalahooda uu kala sareeyo tusaale hadalkayga u dhigayso midna uu yahay 7,000 midna uu yahay 8,000 oo dollar u yahay fiiri mid uu yahay 7,000 mid 7,000 oo dollar u yahay midna 4,500 oo dollar u yahay ama 5,000 oo dollar u yahay oo ha ku degdegin loadkan qiimaha badan ee 7,000 dollar waa marka borderka joogto waa markaad borderka ku sugan tahay haddaad brokerka carartid baan ka hadlaya
oo daragtid laba lood oo ka soo wada baxaya Laredo Texas midna uu 7,000 yahay midna uu 5,000 yahay ka 5,000 inuu kaaga seefsan yahay dhici karto ka 7,000 inuu sida wiilashan hadda loo qabto kale uu baxar ku yahay dhici karto okay ka 7,000 haddaad ku end up garashid oo lacagta qiimo arrin ba ku jirto arrinta waxa weeye ku jirto meeshan borderkan Mexico iyo Mareykanka drugs badan ba ka soo galo waxa weeye taragyadaana la isticmaalaa oo waliba annaga oo Soomaaliyeedna la target gareeya baabuurta ku shaqeysana la target gareeya koos luqadii ma naqaano culture-kii ma naqaano dhaqankii ma naqaano wax walba oo lagu caamiya brokerka wuxuu iska liil gareynaya qolo drug cartel buu liil gareynaya wuxuu leeyahay darawal waxaan helay baal kale Soomaaliya waxba lama socdo ha u sheegina waxba la socodsiin hawsha galay marka hadalka ay detailka siga $7,000 iyo $5,000 laba loo isgarab yara daarad mar walba waxa ku seefsan ogow ka 4,000 ama $5,000 ku seefsan la jadmeed way ka 7,000 waxba waxa la rabaa expression kaga baxo magaaladan uu gudaha Mareykanka uu galaal rabaa marka 7,000 hadda ku end up gareesh aniga waan ka shaqeyn jiray brokerka 2012 iyo 14kii oo broker carar jiray macallin waan ahaan jiray dhalinyar badan oo waas naqaanaa oo ay garanayaan taqbalow waaga Swift macalinka waa aan tababar jiray ardayda okay taraaglaha hadda tahay waa kaaga digaya taraaglaha hadda tahay oo taraag ku shaqeysid oo taraagla tahay wax walba la kulmaysaa dib kasta aad arkaysaa farxad walba arkaysaa xanaaq walba arkaysaa wax walba arkaysaa waana mar walba sifaata for example wali markaad ka tusaale markaad ka shaqeynaysaa borderka baasha waa qalin weey mujida waa qalin weeye taraagla markaad tahayna safe ku tahay waa qalin camera weey $100 miya mise $120 buu ku kacaya waa qalin laakiin qalin ahaan bay u samaysan tahay laakiin waa camera weey garaysa waa camera badhankaas taadanaysa waxa weey wax walba duubaya waxa weey HD video duubaya cod ku qabanaya marka taraagla tahay oo borderka ka shaqeynayso oo aad broker ku ordayso oo aad ma garaysa xaaladdu halkaan ay safe aysan ahayn ogtaa waanaad bahashan gadataa dhalinyarta badan ee taraaglayaasha ee hadda ku soo biiray iyo kuwii horeba intuu Ilaahay ka badbaadiyay waa ka badbaadi kii hadda ma garaysaa dhinaca ka shaqeynaya howlahan la socdo labadan wiil ee hadda la xiray waad aragteen waxa lagu hayaa $12 milyan drugs gaaray waxa laga yaabaa kambanigii ay ka soo qaadeen ama warehouse ka soo qaadeen inuu temporary ah already disappear buu galaya kambanigii ay ka soo qaadeen ma garaysaa drugskan iyo rarkan ay ka soo qaadeen mar haddii uu arkay rag in la qabtay drugs la qabtay kambanigi waa la baabinay nin walba uu dhumanaya nin xabs rabo male wiilashu waxa laga yaabaa inay saa ku galaan oo la yiraahdo cadeenkeena meesha ka soo qaadeen iyo dadka u qaadeen kelida cadeenna inay helin ba dhici karto hadda marka kuwa nabadda qabo yaan waanaya tan waa camera weey waa qalin camera markaad load qaadaysid oo broker tahay oo aad load soo qaadaysid oo gaariga adiga leedahay oo ogsorow boxyada iyo alaabta aad qaadaysid ma fufuri kartid su'aal la weydiinaysa qoladan u qaadaysid waxaan qaaday waa maxay waxay ku leeyahay afkaada qaadaysa waxay ku leeyahay bagaash bad qaadaysa waxay ku leeyahay skor bad qaadaysa waxay ku leeyahay afka ka dhaxayaan ogsorow adiga inta boxyada furfurtid oo alaabta furfurtid ma fiiri kartid because gaarigaaga waa 53 feet waa almost 45,000 pound baqay 45,000 pound ma furfur karto walaal dhageysa marka qalinkan yaad soo gadanaysaa waa camera weyn taraagla walba professional u wata kamerada markii aad brokerkii iyo warqadaha soo saxiixayso rarkaaga la qaadaa iyo kambaniga iyo meesha ka soo qaadaysid waxa taabanaysa gaarigaaga markaad ka daganaysid oo gudaha galaysid oo gaarigaaga la raaya fiiraysid kamerada dhagbad ka shiris wadaaraysa halkaas ka gashanaysa jabkaaga ama waxa gashanaysa bartana aniga inta badan filaadaha hudiga wata halkaas ka gashtaa magarad xagaas ka gashanaysa ku qabsanaysa let me show you waxyar halno xagaas ka gashanaysa badhanka taabanaysa then qalinkaaga cidna kama shakinayso already viewgii iyo warqadii saxiixaysay iyo environmental macna meeshii aad ka soo qaaday iyo alaabtaad ka soo rartay iyo dadkii ku raro oo dhan waxa qabanaya qalinkaas duubay oo qabanaya way faantaan marna qalinkaas qabanayo oo duubayo oo wixii qabanaya hadhow markii lagu istaajiyo hadii daraagis lagu soo qoriyo oo sida wiilasha Soomaaliyeed loo soo laqdabeeyay lagu soo qoriyo daraagisi balaayo in lagaaga faa'iideysto lagu soo qoriyo cadeen baad heshaa askartii markay ku qabato maxkamadda qoto waxa leedahay anigu waxaan hayaa evidence meesha ka soo qaaday baan duubay qofkii ii soo dhibay baan duubay anigu darawal baarahay
shaqaysto xoogiisaanahay waxaa weeye waxaan shuqul iyo shaqo ku mali hadalkaygaad dhigayso taraaglayaasha Soomaalida waxaan u sheegayaa inay gataan qalinkan waa idin degayaan waa intaan aqal idin ku dhaamay qalinkan inaad gadatid meelo badan oo xasaasi ba tagaysa meelo badan oo dib badan ba tagaysa meelo badan oo magaranaysa ay adafaasaneen ba tagaysa in lagu shirqoolaa dhici karto mar walba waa inaad noqotaan ninka laba talaabo ka horeeyo waxa ku dhici doon ilaahay waxa kugu dhici doon ilaahay laakiin waa inaad mar walba be safe ahaataa mar walba waa inaad be safe ahaataa oo magaranaysa ilaahay ba ka badbaadin kare adiguna aad isbadbaadisaa weey ragga Loredo iyo El Paso iyo Santiago iyo magaranaysa dhinaca Asia New Mexico ka shaqeeyo xaaladda area-daas oo dhan way xunta daraagish bilaa laga soo geliyo broker baa wada carnaa ama wada carartaa wada ogtiin waxa weey waana biishif hada waa duqbulo walaalkiin oo idinka waanaarta haddii aad company gaarigan madaxiisa qarana iskale mar Amazon baan u jiida tareelaha u jiida oo magaranaysa aan u qaada mar target baan u qaada mar Walmart oo company-da waaweyn baa target gareeyaan oo duqbulo sababtoo biishif weeye magaranaysa ma sha Allah waana ka lacag fiican yihiin broker waxooda wax la hubo weey waa wax xaqiiqo la hubo oo magaranaysa laakiin dibkaan uga carreynaan garanayna haddaan Soomaalina hadda target baan u jiidayaa waqti iyo saacad bay ugu socoto saacadii waqti waa laga rabaa Amazon hadda u jiido yar badan oo Soomaaliyada far badan baa Amazon u jiido tarayaasha waqti iyo saacad baa la iska rabaa saacadeeda kale tiina noo geeysiba ka rabnaa lagu leeyahay store-ka target-ka noocaas ama Walmart-ka store-ka nooca saacada ina noo geeysi ama Amazon store-ka ina saacada marka saacadaha inta badan Soomaalida in supervisor iyo in la weydiiyay saacad ku shaqeeyay inta badan ma jecel marka waxaan ilaahay be safe soo noqotaan hadda gaariga adiga leedahay oo gaariga adiga iska leedahay be safe soo noqotid kambariyada waaweyn ee logic ah la yaqaano ee wadanka Mareykanka aad ka caan koga ina shaqo u bilowdo tarayaasha idin jiidaya ma sha Allah taas kaaga seefsan oo kaaga qurux badan oo kaaga sharaf badan marka aad iyo aad waa waaski duqbulo waha oo aad iyo aad idin salaamayo dhalinyarta Soomaalida saaxiibaanahay magaranaysa meel walba isku aragnaan wada qadeynaan wada casheynaa laan dheerayaasha islaaliya kaamiradaasna gata mar walba safe kugu ahaato jeebka la gashtaa kambariga tagaysa hadii xaaladiisa xun tahay hadii baashiisa xun tahay waxa weeye aad iyo aad marka aad baa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh